galan siyaasadii aad markii hore taageertay ee dibadda uga baxday ee aad ku difaacday maadaama asaga la dulmay haddana waad arkaysaa asaga dulmi wax ku raadinaya nabadoonkiisina waa tahay odagiisina waa tahay shalan adaa difaacay oo dulmi in la dulma diiday maantana asagii baa dhahayo ina diyaano oo boqorkiisa waa weeraraya bal arrinkaa maxaad ka leedahay adeer galan inaan horta wax ka sheego ma habboonayn laakiin waa maantay waa igu kallifaysaa inaan wax ka sheego sababtoo ma aamusi karayn galan anagu waxaan moodnay nin qiimo leh oo sharaf leh oo wax iska celinaya nimanka anagu ilma adeerta aanu nahay oo tolka aanu nahay kursigiisuma ogolinoo wax madaxa taago oo ku qabsada annagaa jira marka galan wuxuu yidhi dad baan xoraynayaa annaga waaga durbaan buu noo tibaa wuxuu yidhi gobanimaynu gaaraynaa waxbaan isku daba ridaya 450 wiil buu halkaa isku daba ritay tol gabdhaha dahabkoodu soo xaraashay tijaar baa ku kacday adduun oo dhan baa dadkii lugeeyeen odayaasha cabdiweli iyo loo diray oo nabadoonnada baan anigu ka mid ahaa waxaanu doonaanu cabdiweli nin wax yaqaan oo lala kaftami karo oo lala hadli karo oo wax la oran karo oo la calalan karaa buu ah ninkaan in yawdaayo iska dudaaya ma ahayn tuug wax kala yaqaan buu ah nimanka maxamuud Suleymaan anigu hadda waxaan kula yaabanahay oo tolkeeya warniyow nin caaqibale bay keeni jireen oo wax naga rita oo naqan dhuufto aanaan dareemin oo afuufa jiirku markuu ku qaniino wuxuu afuufa ninkaan tunka ka dhididaayay oo bub sidii carruurtii oo guri isku soo xiraaya oo ay u jeedaan oo ay wax oranayn oo dhaqan la hadlahayn oo nin wax oran karin waa arrin aan aad ula yaabanahay yani waa dhaqan rugmaday nin le boqorkiisa baan xiraya maxaaba u harayba galan waxaan leeyahay galan anaga cali Suleymaan ka dhignay galan ciyaalkii meelaha ku dhashay weeye galan xaqiiqdiisaan ka hadlayaa maanta galan waxaa la yidhi adeer waxaa la yidhi ninkii waagu inuu beryaayo og baa kortoga fogeeye galan annagu waxaanu ka samaynay maalintii inuu dabagalay deni oo misna isu dhiibay inay shiro abgaal oo gadaalka istaagay isagoo wasiir amniya oo inay shiro abgaal amraayo oo la yidhi adeer waxaa amarka ka qaadanaysaa inay shiro abgaal waa wasiirka maaliyadda kanina waa wasiirka amniga wasaaraddii amniga oo daba joogta wasiirkii maaliyadda rajada laga sugayaa maxay tahay mani diyaanu xilka ka qaadi karaa war maxaa been la isugu sheegaya war galan anaa nabadoonkiisiya in diyaanana waxaan leeyahay hadduu albaabkaa kuu soo dhafo dhafoorka ku dhifo waa dameer baktiyey cidi ku weydiin mayso waxaa yabaacdaa si dadnimaa isaga celi in diyaano intaasaan leeyahay ilma diyaano waxaan leeyahay hay'addan waxaa idiin dhiibtay niman Maraykana waddanka dalka nabadgelyadiisa iyagaa ilaalin jiray buurahaasay ku jireen rag bay la dagaalamayeen amnigiisay ka shaqeeyeen jeelkaa maalinta la weeraray nimanka dagaalamay oo 20 kaga dhintay iyaga ahay hal nin xariiqi kuma gaarin wiilasheedu wey xaq bay nagu leeyihiin ragga marka wiilashayadii oo noocaas ah ninka maanta xil baan ka qaadaya war galan waa dameer dhaan raac ninna xil kama qaadi karo ninna xil uma dhiibi kare arrintani niyo waa dabeer kuraasta boosaasaa lagu dhacayaa kuraasta